waxaan qaban karnaa 20 sano ilmihii aan keennay ayaa maanta weynaaday naaga waaweyn nala eg weeye waxbay barteen dalkoodii inay geeyaan inaan ku saacidno oo lagu caawiyo hooyada xamar Soomaaliya joogta ayaan heli karnaa maanta hadii Ilaahay raali ka noqdo. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah haweenka hormuudka ka ah ururada ka jira dalkan Britain ayaa sidoo kale waxaa kala soo qayb galay oo lagu casuumay marti ka socotay qaramada midoobe iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Ingiriiska. ujeedada isu imaatinkan ayaa ahayd inay halkan ugu dhawaaqaan midowga 5 urur oo ka mid ah ururada haweenka dalkan ka jira taasoo ay la baxeen codka dhaqdhaqaaqa haweenka Soomaaliyeed. muxuu yahay codka haweenka Soomaaliyeed waa isweydiinayna kulligeena maxaa waa codka haweenka Soomaaliyeed muxuu u taagan yahay muxuu rabaa inuu gaaro codka haweenka Soomaaliyeed saan sheegay waxa waa group oo haween isku imaaday haween iyo maalin u taagnaa inay isku keenaa codka haweenka Soomaaliyeed inay gabdhaha walaalahooda Soomaaliya gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan garab taagnaadaan wax u qabtaan ayagoona wax ka sugaynin aragtideena waxa waaye inaan difaacno xuquuqda hooyada walaasha Soomaaliyeed. waa markii ugu horeysay magaalada London ururada haweenka ka jira qaarkood ay midoobaan isla markaana ay sameystaan dallad ay ku soo gudbiyaan orahdooda. dabcan waxa halkan maanta ku midoobay 5 ka mid ah ururada ka jira magaalada London waxaan jeclahay inaan weydiiyo sababaha dhaliyay xilligan inay midoobaan aan ku hormaro Dahaba iyo waliba ururkeeda. bismillaah inaan midoowno waxa nagu keenay kali wax waa u qabo weynay anagoo wada qabanayna wax walbo marka waxaan go'aansanay inaan isku tagno wax isku tag ayaa keeni kara wax qabad muuqdo. waxaan u midownay in aan muujino faa'iidada ay leedahay midnimada. Soomaaliya 5 baa u qaybsanayd haddana 2 midowday awoodoodii waan arkaynay waxaan rabnaa inaan hirgelino oo aan soo celino midnimadii Soomaaliya urur badan baa London ka jira far kaliya fool ma dhaqdo waxaan u midownay inaan midnimadii Soomaaliya soo celino oo 5tii urur markii hore aan ahayn aan ku soo ururino oo wax qabadkeena ku muujino midnimo mideeya markii hore magacaad ka garanaysaa isaga wax mideeya waxa weeye gabdhahan aanu maanta dah furaynay arrintan aanu bilownay waxay ahayd arrin maaha isku soo booda waa arrin aanu ka soo shaqeynay waa arrin shirar badan nooga qaadatay waa arrin aanu isla garanay markaan si walba u eegnay mideyntu inaanu isu nimaadno inay ku kaga fiican tahay inaanu kali ahaano. waxaan ku midownay horumarka dumarka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan horumar aan gaarno wax qabano wadankeena aan maaragtay aan lugaheena ku istaagno wadankeena aan maaragtay cadowga aan iska bixino maantay haddaan annaga u soo istaagin cid kale oo naga caawinaysa ma jirto. dabcan ururadan hadda midoobay 5 ah ayaa waxaa laga dhul sugayaa sidii ay wax ugu qaban lahaayeen horumarka ay ku midoobeen isla markaana waxaa la sugayaa bal talaabada adag ay qaadi doonaan maadaama sanadkan uu yahay mid bilow ah. waxaa sidoo kale halkaas lagu soo bandhigay filin ka turjumaya gaboodfalka dumarka dalka jooga lagula kacay oo ay ka mid tahay kufsiga iyo xasuuqa birmageydada aan waxba galabsan. Of course today we are here to launch the Voices of Somali Women organization. To them we say a resounding Mubarak, congratulations. munaasabada halkan ka dhacday ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horeysay oo 5 ka mid ah ururada haweenka Soomaaliyeed ee ka dhisan dalkan UK inay ku midoobaan. dabcan arintani waxay noqonaysaa talaabo hor leh oo jaaliyada Soomaalida ay u furayso albaab cusub taasoo dad aad u fara badan ay ku farxeen maanta markii arkeen qaar ka mid ah ururadii haweenka oo halkan ku midoobay. ururadan midoobay isla markaana la baxay codka haweenka dhaqdhaqaaqa Soomaaliyeed ayaa maanta loogu dhawaaqay magaalada London jaamacaddan iminka aan ku suganahay ee SOAS. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal London.